بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. walaalayal waa ku caafimaaday saliidan al-shifa aniga waxa xanuuni jiray madaxa saaidii xanuuni jiray waliba waxaan qabay midka ugu daran oo madax xanuunka qaybta biyaha barafka dhalisa ayaan markuu madax xanuunaan aan u dhigi jiray biyahaasaan u dhigi jiray. alxamdulilah hadda waa ka caafimaaday waa ka fiicnaaday. kilida xanuuni jirtay meeshaan kilida ma dhaheena xudunta waxaad u qabtaa nabar inuu iiga yaalaan moodi jiray oo dhakhtar kasta u tagay oo daawo kasta qaatay waxba ayada marka xabagsoodaan marka hore mari jiray laakiin marka aan daawadan al-shifa aan helay waa iska mariyay adigu 2 wiig markaan mariyaba waxaa ka soo dhacay qob oo qolof hafuushay way iga dhacday waa ii fiicnaaday alxamdulillah ma sha Allah. waxaa kaloon uga fiicnaaday meelahan dadku ay dhahaan sarcaha oo labada lugood ii sheeg ay la meeshan sarcaha anigu sarcaan u aqaan laakiin Soomaalida kale ma aqaan waxay u taqaano labadaas meeloodna way xanuuni jireen oo saa'iday waliba ay xanuuni jireen ayadina waa ku caafimaaday. waxaan kaloon qabay hurdo la'aan marmaraan hurdadu iga tagay markaasan 24 saac soo jeed jiray cawo iyo maalin sidaas oo kale haddana marka aan marsaday anigu waa ismariyaa gebigay markaan habeenka aan seexaan wada marsadaa waa ka fiicnaada ayadana intaan raba aan hurdaa intaan rabana waa ka soo toosaa marka alxamdulillah wax badan aan uga caafimaaday waxaan ka helay deganaansho hurdo waxaan ku leeyahay qabow korka xataa waa ay hur jiray oo kurkulaylaan qabay ayadana kulaylka saa'idka ahay waa uga degay alxamdulillah. marka inta aan uga caafimaaday iyo inta aan ka helay wax la soo koobi kara maaha laakiin hadda inta aan ka xasuusto waa intaas. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.